soo dhawaada magacaygu waa Ibrahim Aadam fadlan haddaad kanaalka ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay facts ama xaqiiqooyin laga yaabo in ay kugu cusub yihiin marka factskaas ayaan isla arki doonaa soo dhawaada mar kale haddii aadan like saarin muuqaalka like saar sidoo kale kanaalkana ku soo biir noo bilaabo muuqaalkeena faktiga ugu horeeya waxa ay tahay waa buuggii ugu qaalisanaa adduunka oo dhan buuggan waxaa la iibsaday 1994 waxaana iibsaday maalqabeenka weyn ee Bill Gates buuggan magaciisu waxaa la dhihi jiray Condax Lester waxaana qoray nin la yiraahdo Leonardo da Vinci waqtigaasi oo ay taariikhdu ahayd 1994 buugga lacagta laga bixiyay waxa ay ahayd 30.8 milyan oo dollar oo maanta u dhiganta 54 ama 55 milyan oo dollar waa lacag haddii maanta aad haysan laheeday aad ku dhisi kartay qayb ka mid ah Soomaaliya faktiga waxa uu yahay markii aad sheegayso been run ah yani waxaan ka wadaa markii aad been sheegayso aad qof been u sheegayso waxaan hadda ku dhihi doonaa soo xasuuso ka bacdi tijaabi okay laakiin hadda tijaabisid hadda macquul ma because waad ogtahay waxa aad sameynaysid laakiin been run ah markaad sheegaysid ayaad tijaabin doontaa waxayna tahay markii been aad sheegaysid sankaaga qaybtiisan kore kuleel ayuu noqon doonaa wax fish ayuu soo deyn doonaa kuleel biyo ayaa ka imaan doonaa kuleel ayuu noqon doonaa sidaas daraadeeda qofka markuu been ku sheegayo waxaad ka ogaan kartaa sankiisa midda saddexaad waxa ay tahay indhahaaga oo furan ma hindisi kartid haddii lacala aad isku daydid in aad tijaabisidna indhahaaga banaanka ay imaan doonaan aad ay khatar u tahay dadkana waa lagala taliyaa maadaama waxaan ay tahay wax uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka soo saarayo oo ka soo baxayo haddii xitaa aad isku celisid ama aad sanka xiratid ama afka aad xirtid waxa macquul ah kilidaba inay ku dilaacdo oo kilida ay ka soo baxdo sidoo kale indhahan inay banaanka yimaadaan waa macquul sidaas awgeeda waa inaad ka digtoonaataa in indhahaaga oo furan aad hindistid ama aad isku daydid macquulna maaha in aad hindistid indhahaaga oo furan midda afraadna waxa ay tahay tani waxaa laga yaabaa inaad hore u maqashay in ay kugu cusub tahayna waa macquul wadamada North Korea iyo Cuba waa labada wadan ee kaliya ee shirkadda Coca-Cola aan laga ogoleen wax Coca-Cola ah kama iibsan kartid lagamana helo Coca-Cola inkastoo dadka intooda badan aysan cabinba laakiinse haddana dadka jecel labadaas wadan North Korea iyo Cuba lagama helo wax Coca-Cola ah midda shanaad waxa ay tahay inta aad wax baranaysid oo dhan waad arki doontaa IE iyo EG isku mid ma ahan waa laba eray oo u kala taagan laba micno guud ahaan maybe inay isku micno yihiin laakiin haddana waa ay kala duwan yihiin IE waxaa laga soo gaabiyay IDS oo la micno ah that is sidoo kale waxaad ku soo xasuusan kartaa in essential sidoo kale EG iyadana waa eray Latin ah oo laga soo gaabiyay exempli gratia oo iyadana la micno ah for the sake of example tusaale ahaan waa isku mid sidoo kale iyadana waxaad ku soo xasuusan kartaa example given oo EG ay noqonaysaa example given midda lixaadna waxa ay tahay waa very important caafimaad ayay noqonaysaa waa antibiotics tusaale ahaan caloosha ayaa laga qabtay ama bacteria waxaas ayaa ku qabtay kabacdi waxa soo qaadatay antibiotics ama qalajiyaashaasi waa very important in aad dhamaysataa haddii ay dhacdo in antibiotics aad dhamaysanin oo aad dhaxda ku kala jirto waxaa jiri doonta bacteria difaaceeda uu adag yahay waxayna sababi doontaa in ay la falgasho antibiotic aad qaadanaysay oo aad iska joojisay oo aadan dhamaystiranin bacteriadaasi waxay isku bedeli doontaa mid nooceedu uu cusub yahay waxayna ku keeni doontaa hadhowti in la daaweyn waayo sidaas awgeeda waxaa lagu talinayaa in kaniiniyada ama antibiotic uu dhakhtarkaagu ku soo siiyay si sax ah aad u dhamaysatid xitaa haddii aad dareentid in aad caafimaaday iska dhamayso midda ugu dambaysa waxa ay tahay waa mid inaga noqosaysa waana u baahannahay YouTube-kan aad hadda inaga daawanayso waxa la daawadaa 1 bilyan oo saacadood waa 1 billion hours waa 1 bilyan oo saacadood goormee la daawadaa sanad ma aha milooyin ma aha isbuucyo ma aha maalmo ma aha waa hal maalin oo kaliya waa 1 day per day ayaa la daawadaa 1 bilyan oo saacadood taasi oo celcelis ahaan ka badan inta la daawado muuqaalada iyo filmaanta ku jira Netflix iyo Facebook muuqaalada ku jira oo isku daray labadaasi shirkadood inta saacadood oo la daawado ay ka badan tahay
haddaba anagu waan u baahannahay in muuqaaladeena la daawado oo saacado fara badan aan helno si aan goolkeena u gaarno. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aadan weli muuqaalka like saarin in aad like saarto, sidoo kale kanaalka aad ku soo biirto oo subscribe noo saarto. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa in aad muuqaalka asxaabtaada la wadaagto, isagana inuu kii hore soo bareejeeyo oo 1k uu dhaafo. waxaan mar kale ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ku raaxayso noloshaada. Peace.